aamusnaan xoog ugu shaqee guushaaduna ha samaysa dhawaaqa. haddii aad rabto inaad hesho waxaanad weligaa hore u helin waa inaad samaysaa waxaanad weligaa hore u samayn. laba shay ayaa ku qeexa samirkaaga markaanad waxba haysan iyo dabeecadaada markaad wax kasta haysato. farxadda ugu weyn adduunku waa qabashada waxay dadku ku yidhaahdaan ma qaban kartid. webigu kuma jira dhagaxa awooddiisa balse waxa uu ku jiraa adkaysigiisa. haddii ay muhiim kuu tahay waxaad heli doontaa dariiq, haddii aanay muhiim ku ahayna waxaad heli doontaa cudurdaar. riix naftaada sababtoo ah ma jiro qof kale oo kuu riixaya. socdaalka kumanaanka mayl ahi waxa uu ka bilaabmaa hal tallaabo. waxaad guul daraysataa oo keliya markaad joojiso isku dayga. aargudashada ugu fiicani waa inaad guul weyn gaadho. caqabaduhu maaha inay ku joojiyaan. haddii uu gidaar ku xanibo dib ha uga noqon oo ha quusan. hel si aad ku fuusho. haddii aanad fuuli karin hel si aad uga hoos baxdo. haddii aanad ka hoos bixi karinna hel si aad ku agmarto. guulaystuhu waa qof riyooday oo aan weligii quusan. haddii aanad weligaa guul daraysan weligaa wax cusub iskuma dayin. haddii aanad horumar u samaynayn sidii dhaqsaha ahayd ee aad rabtay inaad u samayso macnaheedu ma aha inaanad horumar samaynayn. hore u soco. marka aad u rabto inaad u guulaysato si la mid ah sida aad u rabto inaad u neefsato markaas ayaad guulaysan doontaa. dadka daciifka ahi way aargutaan. dadka xoogani way cafiyaan. dadka caqliga badanna way iska indhatiraan. ugu horraynta waxay ku weydiin doonaan sababta aad u samaynayso. marka dambena waxay ku weydiin doonaan sida aad u samaysay. haddii aanad riyadaada kuu gaarka ah dhisan qof kale ayaa kuu shaqaalaysiin doonaa inaad riyadiisa la dhisto. qofka dhinaca xun wax ka eega fursado kasta wuxuu arkaa dhibaatooyinkooga. qofka dhinaca fiican wax ka eegaana dhibaato kasta wuxuu ka dhex arkaa fursado. guulaystayaashu maaha dadka aan weligood fashilmin balse waa dadka aan weligood quusan. ha joojin marka aad daasho. jooji markaad si buuxda wax u qabato. shaqada adag ayaa ka badisa kartida markaanay kartidu si xoogan u shaqayn. tallaabada ugu horraysa ee aad meel kasta ku gaari kartaa waa inaad ugu horrayn go'aansato inaanad sii rajaynayn inaad halkan aad joogto sii joogto. howlaha aad inta ugu badan ka fogaataa waa kuwa ay ku jiraan fursadahaaga ugu weyni. ka bilow halka aad joogto. isticmaal waxa aad haysato oo qabo waxaad qaban karto. haddii aad ku guul daraysato inaad wax qorshaysato waxaad qorshaynaysaa inaad guul daraysato. weligaa ha quusan. bilowgu badanaa waa waxa ugu adag. noloshu kuma siiso waxa aad rabto waxay ku siisaa waxa aad shaqaysato ee aad u qalanto. noloshu xadidaado ma leh marka laga reebo kuwa aad adigu samaysato. waxa ugu fiican ee aad noloshaada samayn kartaa waa inaad naftaada aaminto. ha ka fikirin inaad lacag badan dhigato. ka fikir inaad lacag badan samayso. weligaa qofna ha u sheegin qorshayaashaada balse taa beddelkeeda tus natiijooyinkaaga. naftaada asxaan u samee oo dadka qaarkood noloshaada ka tirtir. waxaad heshaa waxa aad shaqaysato ma aha waxaad rajayso. ma jiraan sire ay guushu leedahay. waa natiijo ka dhalata diyaargarow, shaqo adag iyo guuldarrooyinkaaga oo aad wax ka barato. haddii ay ku yidhaahdaan suurtagal maaha iyagaanay u suurtagal ahayn balse adiga maaha. adiga oo keliya ayaa beddeli kara noloshaada. qofku beddeli karaa ma jiro. maalin kasta oo cusubi waa fursad cusub oo aad ku horumarin karto noloshaada. uga faa'iidee sida ugu fiican. guushu waa isku geynta dadaalada yaryar ee aad ku celceliso maalin walba. habka ugu fiican ee aad ku bilaabi kartaa waa inaad joojiso hadalka oo aad bilowdo qabashada. waxaad wax badan ka barataa guuldarrada in ka badan intaad ka barato guusha. ha u ogolaan inay guuldarradu ku joojiso. guuldarradu waxay dhistaa dabeecadaada. ninka naftiisa kalsooni ku qabaa wuxuu helaa kalsoonida dadka kale. guushu kuu iman mayso oo ku soo heli mayso. waa inaad baxdaa oo aad adigu heshaa. maanta qabo wax naftaadu mustaqbalka kaaga mahadnaqi doonto. ha sugin fursado adigu abuur fursadaha. dejiso hadafyo waaweyn hana joogsan ilaa aad halkaa gaadhaysid. weligaa guulaysan maysid haddii aanad weligaa bilaabin. mar kasta samee waxa ugu fiican ee aad samayn karto. waxaad hadda beerato mar dhowbaad goosan doontaa.
badda marnaba kama gudbi kartid haddii intaad biyaha hor istaagto aad ku dhaygagto. haddii aanad jeclayn sida ay wax yihiin beddel ilingeed ma tiide. wax isbeddelayaa ma jiraan haddii aanad adigu isbeddelin. maalmaha adagii waa waxa kaa dhigaa qof xooggan. maantu waa fursadaad ku dhisi lahayd berrida aad rabto. waxaad heshaa waxaad diiradda saarto. haddii aanu qorshuhu kuu shaqaynayn beddel qorshaha balse weligaa ha beddelin hadafka. haddii aad daasho baro inaad nasato balse ha joojin. qodobka ugu xooggan ee guushu waa kalsoonida nafta. aamin inaad qaban karto, aamin inaad u qalanto, oo aamin inaad heli doonto. markay noloshu ku siiso boqolaal sababood oo aad u oydo, tus nolosha inaad haysato kumanaan sababood oo aad u dhoola caddayso. si aad xaqiiqadaada u beddesho waa inaad beddeshaa habfikirkaaga. si aad u guulaysato damacaaga guushu waa inuu ka weynaadaa kacabsashadaada guuldarrada. dadka qaar way ku riyoodaan oo keliya guusha, kuwo kalena way kacaan oo way gaadhaan. haddii aad rumaysato shakiga ku jira maskaxdaada, gaadhi maysid riyooyinka ku jira qalbigaaga. dadaal ilaa inta kuwa ku nacebi ay kooranayaan na shaqaalaysi. guushu kama timaado waxaad marmar keliya qabato, waxay ka timaadaa waxaad si joogto ah u qabato. guuldarradu maaha cagsiga guusha, balse waa qayb ka mid ah guusha. ha sugin inta dareennadaadu isbeddelayaan si aad ficil u samayso. ficilka samee, dareennadaaduna way isbeddeli doonaan. haddii aad sii wado inaad u fikirto sidii aad badanaa u fikiri jirtay, waxaad sii wadi doontaa inaad hesho waxaad badanaa heli jirtay. weligaa ha qaban berri waxaad maanta qaban karto. wahsigu waa tuugga wakhtiga. qofka keliya ee ay tahay inaad isku daydo inaad ka fiicnaataa waa qofkii aad shalay ahayd. weligaa beddeli maysid noloshaada ilaa aad beddelayso waxaad maalin kasta samayso. sirta guushaadu waxay ku jirtaa howlmaalmeedkaaga. ma tihid natiijada duruufahaaga ee waxaad tahay natiijada go'aanadaada. isku darka horumar yar oo aad maalin walba samayso ayaa keena natiijo weyn. weligaa ha quusan, waxyaabaha fiicani wakhti bay qaataan. ha isku dayin in wax kastaa kaamil ku noqdaan. isku day oo keliya inaad ka fiicnaato sidii aad shalay ahayd. aad baad u mahadsantiin dhammaantiin. halkan aan ka wada soconay waa wax ka bara channel. haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar, lana sii wadaag muuqaalkan asxaabtaada. tan iyo kulankayna kan xiga. ammaan allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh.